السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن السلام يا مرتي شرفت قيمها بدن كسو قيب قشي شركا من نمضى يا سمتبحين تديغانك مدن يالي مروين انت إنا نقود قلن برنامج كينا وحان شعلان لها إنا نكفرنا آياتها قرآنك وحانا هالكان ديار النووء أستاذ محمد عبد الوهاب فضلا كسو دو سوى آياتها قرآنك النووء بلابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيضا سأدي معلوماتها ترى آياتها وكوني لكن معناها وفي سوكوي الدنيا آخر وحيها. والعصر وحل قوي والعصر وحل إلهي وحو دورو كدارتا والعصر حل أيو إلهي كدارتاي إلا الإنسان الله في خسر بني آدم كو خسارة كسويني بعض بي كسويني ضلال بي كسويني إلا الذين آمنوا ضدك إيمانك لغاية نموين يعني وشرط الكواب إيمانكو وحوار رمي كلمة معها شروط بوطاع وإن هذا البيت شيغن وإن هذا ضد حمل وإن الأمانة وهي حقوق بني آدم كي يتضدك إلهي كولها منك واحد قدبين إلا الذين آمنوا إيمانك وعملوا الصالحات وناك كدن بيسي عملك صالح مركوا بديه waxaa kamida dadka aan hadli kareyn maanta meeshan u fadhino sacyigaan soo sacinay gaarigaan soo kaxaysanay waqtigaan ku bixinay waa amal saalihaad wax alla wixii wanaag la sheegay waa amal saalihaad yaa la yaraysan wala tahqiranna min al-ma'ruf shay'an bi rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa wanaaga waxba ha yaraysanin walaw an talqa akhaka biwajhin taliq hatta hadda walaalka wajh furfur aad kula qaabilayso waxba ha yaraysan bali wixii wanaag waxaan ku soo koobayaa xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam macnihiisu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin baa la yidhi raaci baa tihin ilaaliyaal baa tihin xoolaha ammaanada markaa ruuxu xoolihiisa ilaashanaya waa raaci diibuu iyagu ka ilaaliyaa dhurwaagu ka ilaaliyaa libaaxu ka ilaaliyaa وكلكم مسؤول عن رعيته والبنا وحي مسؤولين لو بدغي ولا يدين دونا الامام راع روح امامك ضد مسؤولك ضد مسؤولك امانه وين قاضي ولا يدين ولا نسالنكم ولا يدين دونا جوابته نك خيلك قادو ابي كوتا الله صادق ابو جوابي هاي يا ولا سبيشال marka dad aad tabardaran xukunto oo dhinac walba ka tabardaran dhaqaale ka tabardaran siyaasad ka tabardaran mas'uuliyad waxa weeranaysa waxa mas'uulada la ninku waa mas'uul iyo qof mas'uul ilmahooda iyo xaafadooda iyo gurigaas iyo mas'uul ka yihiin marka mas'uuliyadaha farabadan ba waxa jira wax kale oo la yiraahdo al-mas'uuliyya al-jamaa'iyya dhamaantood mas'uuliyadda laga saaran waxa laga saaran tahay common good inaan wax wanaagsan wada samayno waxa fadhigan maanta fadhino waxay ka mid tahay mas'uuliyadaas ay ka mid tahay waxa xadiiska rasuulku wuxuu kala ahaa as-saakitu 'an al-haqq shaytaanun akhras ruuxa intuu xaq arko oo arka xaqi ka aamusa waa shaytaanun akhras baa la yidhi waa shaytaan carra baa la yidhi as-saakitu 'an al-haqq شيطان أخرس منك أنتو أركو ظلمي يا حق وحريق مجلين هذا وشيطان أخرس والكلمة الطيبة صدقة كلمة ولا أكسن يدك وين ليس وصدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي
kaas wuxuu ahaa ustaad maxamed cabdiwahaab khayr allah ka siiyo way السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر لبعض مدنيال إيا مروين واند السلام يا مرتي شرفت قيمها بدن كسوة قيب قشي شركا من لماذا يسمى تبحين تديغان كأنا قلت لك اللي أو أي كسوة قيب قلين وكيلة أورورا مركز إيجو انت يسكوني مادين كتشري آياها إيو حالة أو كسوة يهي ديغان كينو ururadaas wakiiladooda meeshan inoo fadhiya waxaa ka mid ah golaha danta Soomaalida waxaa ka mid ah ururka ONLF waxaa ka mid ah isaguna ururka FEBA ka mid ah waxaan inaga maqnayn garabkii saxitaanka BB dhammaantayo waxaan iskugu nimid ka hadlida midnimada iyo samata bixinta deegaanka waxay noo jooga marti sharaf badan oo ka hadli doonta xaaladda uu deegaanku ku sugan yahay طبعا waynu ka dhareegsanahay bal iyo dibadba maanta deegaanku waxa uu ku sugan yahay dhibaatada ugu ballaaran ee aynu iskugu nimid goobtan iyada ah baa waxay tahay deegaanka xaaladda maanta ka jirta oo ah musuqa baahsan in qarsoonayn iyo caburinta lagu hayo shacabkii deegaanka ama waxgaradkii xariga loo geystay mas'uuliyiintii hore ee deegaanka markii ay u adkaysan waayeen musuqa waxisdabamarinta iska horkeenitaanka caburinta ee maamulka deegaanku uu wado ba ay iskaga degeen tareenkii ay saarnaayeen ee maamulkaas iyaga oo dareenkooda iyo caqligooda uu siiyey inaysan ka sii mid ahaan karaynin maamulka liita een naxariis iyo daryeel mid toonana aan u haynin shacabka deegaanka waxaa jirta dhibaatada inoogu badan maanta deegaanka haysata waa abaarta masiibada ah ee rabbaaniga ah marka hore ilaahay aynu u barino in shacabkeenni ilaahay ka dulqaado ilaahay ha ka dulqaado shacabka aan haysanin dawlad iyo maamul maanta samata bixin karaya ilaahay ha ka dulqaado laba masiibo wey laba masiibo baa deegaanka ku habsatay labada masiibo oo ah maamul ku sifoobay musuq iyo abaartan rabbaaniga ku dhacday saad ogsoontihiin marka wadan deegaan ama deegaan uu ka jiro maamul way dhacdaa masiibadu laakiinse waxaa loo baahan yahay in laga jawaabo loo diro dad maaragtay ama xafiiska ay qusaysay in la soo qiimeeyo lacagayo badan baa jira oo deegaanka loogu deeqay lacagtiiba heer waxaa la maraya in golihii wasiiradu qaarkood isku qabsadaan oo laga tashado sidii qaybtooda ay u heli lahaayeen ogsoonaada shacabkii deegaanku ee abaartu ku habsatay waxay u dhimanayaan macluul iyo oon bay u dhimanayaan iyadoo taasu jirto in la masuqo lacagtoodii damiirka waxgaradka deegaanka ka soo jeeda dal iyo dibadba waxay sii weyday inay indhaha ka qabsadaan oo ay ka aamusaan waa ta sababtay maanta shirkani inuu noqdo kii saddexaad kii koowaad oo bishii hore aanu ku qabanay halkan kii labaad oo isaguna ka dhacay Nairobi kii saddexaad oo nooca u fadhino iyo kiisa afraad shirka midnimada iyo samata bixinta oo ka dhici doona Canada habeen dambe haddii Allah idmo mudanayaal iyo marwooyin dhibaatada jirta deegaanka baanu iskugu nimid halkan saas daraadeed waxgaradka meeshan jooga iyo wakiilada ururada baa iyaguna ka dhiiban doona fikirkooda ku aadan masiibada deegaanka ku habsatay ee ah maamulka musuqa iyo abaaraha ka jira insha Allah barnaamijkuna waa inoo furan yahay intaas waxay ahayd horodhac iyo barnaamijka iyo aynu la wadaagayno dhammaan inta live-ka inagala socota iyo inta gadaal ka daawan doonta markan waxaynu furan doonaa shirkeena marti sharafta inuu ugu yeeri doonaa waxaan u yeeri doonaa markan oo shirka noo furi doona gudoomiyaha jaaliyadda waqooyiga America mudane Cabdiraxmaan Sheekh Xasan fadlan ku soo dhawow بسم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يالي مرويين مرتشرف تماشى فددا نوعية كلا دوان ورادة بالشدة ورادة سياسة odayaasha dhalinyarada hooyooyinka waxgarad ka meesha isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. inta kadib sharaxaad badan uma baahna shirkeenu wax badan baa laga hadlayaa oo deegaankeenii ku saabsan oo dhib ah oo jira oon laga been sheegaynin sababtoo ummadoo dhan been iskuma ina raacdeen abaar aad u adag ilaahay ha inaga sabata bixiyo oo dhibkeeda wadata oo intay dunyadii soo dhaaftay bini aadamkii u dhintay yaa la sheegayaa waxaa la sheegayaa maamulkii meesha ka jiray ee abaartaas isku day lahaa inta taagtiisa hadduu daacad ka yahay inuu maareeyo inuu taagan yahay ama ku hadlay ama ku qowlay inaan abaariba jirin la siyaasadaynayo bismillaah waa wax ilaahay laga magan galo waxaa la sheegayaa dhibaatooyin kale oo la xidhiidha dadka la handadayo la xidhayo guryaha loogu dhacayo meelay mareen aan lahaynin ee wakhtiga adag ku jira innagu kolkaan ka soo noqdo arrimahaas oo dhan meesha waxaynu isugu nimid kuwa aan codka lahayn inaynu codkeenna gaadhsiino inta u diirnaxaysa ee u magac sheegata deegaankaas shirkan midnimada iyo samata bixinta deegaanka oo ah kii saddexaad ee noociisa ah iyo kuwo kaloo soo socdaba inaynu kaga hadallo innaga lafteeda aynu iska bilowno midnimada aynu wixii aynu qaban karna lafteeda wadno waxaynu qabanay oo fiican baa jira hoos waynu isu ognahay kooxa la isu organize gareeyay waxyaabo badan baa jira inaynu ka sii ballaadhino inaynu ka sii fiicnaanana waa loo baahan yahay aad iyo aadna waan sida runtu tahay waan uga mahadcelinayaa dadkii hawsha abaabulkeeda galay kuna jira ilaa iyo hadda mar kale waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogto way salaaman tahay kuwa goobta fadhiya iyo kuwa media nagala socda arrinteenu isugu nimid waa taas iyaga tilmaami doona dadka ka hadli doona iyo marti sharafta aad iyo aad baad u mahadsantihiin shirkuna waa inoo furan yahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.